Assalaamu calaykum. Halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa qisada basaasadii Nada Nadiim ee gilgishay laamaha amniga ee Maraykanka qaybtii saddexaad ahna qaybtii ugu dambeysay ee qisada. Si aad u fahanto qisada, waxaa qurux badan inaad soo daawato qaybihii hore ee qisada. Chris oo hadda ku shaqaysta najaarnimo isla markii uu dhammaaday guurkaas beenta ahi waxa uu si rasmi ah u guursaday xaaskiisana uu hadda qabo. Waxa aanay dhaleen 4 carruur ah. Chris xaaskiisu waxay sheegtay in markii ay guursanaysay Chris iyo intii ay xaaska ahaayeenba aanay waxba ka ogeyn qisada guurka hore ee odageeda iyo Nada, balse ay warkan ku baraarugtay markii baadhayaasha FBI-du ay soo garaaceen albaabka gurigooda. Xeer ilaaliyaha guud ee degmada Detroit oo dacwadani ka dhacday ayaa markii uu dacwadda ku soo oogayay Nada waxa uu sheegay in aanu wax dacwad ah oo la xidhiidha guurka been abuurka ah ku soo oogaynin ninkan Maraykanka ah ee Chris, isagoo sababtana ku sheegay in Chris uu kiiskan aad ugala shaqeeyay baadhayaasha wax badan oo dacwaddan la xidhiidhana uu u fududeeyay, iyo sababta labaad oo ah sida uu xeer ilaaliyuhu sheegay in sharciga Maraykanku uu dhigayo inaan maxkamad lagu soo taagi karin dembiyada la midka ah kan uu Chris galay marka ay ka soo wareegto 10 sano iyo in ka badan. Booliiska Maraykanku waxa kale oo ay arrinta Nada u qabteen baadhis dheerna ku sameeyeen Andrew Cali, oo isaguna ahaa nin ay horey isu guursadeen Nada guurkii been abuurka ahaa kadib. Andrew Cali sanadkii 1997 ayaa uu Nada ku guursaday gobolka Pennsylvania oo ay degtay markii ay heshay jinsiyadda Maraykanka ee ay ka guurtay Michigan. Mar dambe ayaa ay Nada iyo odageeda Andrew u sii guureen magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka, halkaas oo ay shaqo ka heshay waaxda dembi baadhista federaalka ee FBI. Mar dambe ayaa ay kala tegeen Andrew Cali iyo Nada, kadib waxay haddana guursatay nin kale oo lagu magacaabo Gordon Broti oo ah ninka ay ilaa hadda wada joogaan ee magaca qoyskiisa ay qaadatay. Nada waxa ay ninkan u dhashay wiil ay u bixisay Al-Acwar oo ah magaca awow hore oo qoyska Nada uu ku abtirsado. Nada saygeeda Gordon oo uu markii dambe booliiska Maraykanku qabtay si uu uga wareysto dhacdadan ayaa sheegay in aanu haba yaraatee waxba ka ogeyn wax dareen ah oo ka shaki gelinaya xaaskiisana aanu ku arag. Dhinaca kalena dadka degan xaafadda ay magaalada Washington ka deganaayeen Nada iyo odageedu ayaa sheegay in aanay wax dareen shaki ah abuuri kara ku arag qoyskan. Waraysiyo lala yeeshay ayaa ay ku sheegeen in Nada iyo Gordon ay ahaayeen lamaane aad u xasiloon, wax shaki keeni karana aanay mar keliya nolosha qoyskan ka arkin. Basaasadan Xisbullah ku dhex beeratay sirdoonka Maraykanku waxa ay fadeexad weyn u soo hoysay guud ahaan hay'adaha amniga iyo sirdoonka ee Maraykanka. Inaan mar keliya laga shakiin oo ay howlaheeda basaasnimo muddadaas dheer wadatay weliba ay ku guulaysatay inay isaga gudubto shaqada labada hay'adood ee FBI iyo CIA-da ayaa ah ceeb aad u fool xun oo ku dhacday sirdoonka Maraykanka oo isku tiriya kuwa ugu fiican dunida oo dhan. Majalladda Newsweek ayaa warbixintii ay sheekadan ka qortay waxa ay aad ugu noqdiday dareenka iyo feejignaanta sirdoonka Maraykanka. Iyadoo arrintaas ka hadlaysana waxaa warbixinta majalladda ku jiray waxaa muuqata in mas'uuliyiinta FBI iyo CIA ay mar keliya ku war heleen in Nada aanay ahayn qofkii ay moodayeen, taasoo macnaheedu yahay in xitaa aanu jirin dareen shaki dhalin kara oo ka galay gabadhan. Majalladda oo qormadeedii soo baxday 27 Noofambar 2007 ciwaan uga dhigtay cilaaqaad khatar badan waxa ay ku tidhi Nada waxa ay ku guulaysatay inay mas'uuliyiinta sirdoonadeenna waayo aragga ah moodsiisay inay tahay qofkii ku habboonaa hawshan iyo shaqadan uu sirdoonku u baahan yahay. Waxyaabaha u fududeeyeyna waxaa ka mid ah inay ahayd gabadh aad u joog iyo dhaban qurux badan, garaadkeeduna aad u sarreeyo. Waxay ahayd gabadh furfuran oo aad u galaangal badan, tilmaamahaas oo ka mid ah kuwa ay wakaaladaha sirdoonku sida gaarka ah u xiiseeyaan marka ay basaas shaqaalaysiinayaan. Nada si aftahannimo leh ayaa ay afka Carabiga ugu hadli jirtay, waxa aanay karti yaab leh u lahayd la qabsiga iyo la jaanqaadka shaqada sirdoonka Maraykanka. Nada waxay haysatay shahaado jaamacadeed oo ah xisaabiye sharci ah, taasoo u fududaysay inay si fiican ula socon karto jidadka dhaqaaluhu marayo. Wargeyska Newsweek waxa uu sheegay in markii hore ay Nada shaqada ka heshay xafiiska baadhista dembiyada ee FBI, waqtigaasina uu ahaa sanadkii 1999. Waxa uu sheegay in FBI-du ay sanadkii 2003 Nada u dirtay dalka Ciraaq si ay uga qayb qaadato waraysiyadii lala yeelanayay maxaabiistii Carabta ahaa ee ciidamada Maraykanka iyo xulufadiisu ay qabanayeen. Warbixinta Newsweek waxaa lagu sheegay in sirdoonka Maraykanku ay la dhaceen shaqadii ay Nada ka soo qabatay halkaas. Kaalinta ay baadhitaannadaas ka qaadatayna ay noqotay mid aad ay u soo dhoweeyeen, taasoo sababtay in wakaaladda dhexe ee Maraykanku ay xiisaysay in Nada ay iyadu la wareegto oo ay u shaqayso. Bilo yar kadib markii ay Nada ka soo noqotay Ciraaq, waxaa la wareegay wakaaladda CIA-da oo durbadiiba u magacaawday sarkaal si gaar ah loogu xil saaray howlaha sirta ee dhinaca baadhitaannada iyo waraysiyada la xidhiidha. Marka laga warramayo qisada Nada, waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah
xogta uu ka qoray wargeyska Los Angeles Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin sirdoon oo hore CIA uga tirsanaan jiray sheegay in sanadkii 2005 uu sirdoonku nada la yeeshay waraysi laga qaaday iyadoo lagu rakibay mishiinka beenta fashiliya. Saraakiishan oo intii aanay howlgabka noqon ay shaqada sirdoonku isku soo gaadheen nada ayaa wargeyska u sheegay in CIA caado u tahay in muddadiiba mar saraakiisha xilalka xasaasiga ah haysa ama meelaha warka sirta culus ahi yaalla ka agdhow la mariyo waraysiyo lagu hubinayo daacadnimadooda iyadoo lagu rakibayo qalabka beenta fashiliya si loo hubiyo inay run sheegayaan. Waxay saraakiishani sheegeen in mishiinkii nada lagu rakibay uu soo saaray ishaarooyin sheegaya in qofkan la waraysanaya uu been sheegayo, laakiin haddana saraakiisha CIA aanay arrintaasi shaki gelin, waxbana aanay u dhimin shaqadii iyo mas'uuliyaddii ay gabadhani ka haysay CIA-da. Sababta ugu weyn ee keentay in CIA aanay rumaysan mishiinka beenta ayaa ah aaminsanaan marka horeba ay qabeen mas'uuliyiinta Mareykanka oo ah in qiyaastii rubuc saraakiisha CIA-da ka tirsan, gaar ahaan kuwa qoysaskoodu ay degan yihiin dalal ka baxsan Mareykanka, ay dhibaato weyni ka haysato inay imtixaanka hubinta beenta gudbaan, laakiin haddana aanay arrintani saameyn ku yeelan oo siyaabo kale loo xalliyo. Waxaa jira aaminsanaan ah in qofka u baqaya in qoyskiisa ay dhibaato ka soo gaadho shaqada uu hayo awgeed, ama qofka aan marka horeba sharabixin ee ku cusub howlaha sirdoonka lagu arko cabsi iyo xaalad nafsiya oo aan deganayn. Taasina ay keento in mishiinka beenta oo isagu dareennada noocan uun ka jawaabaya uu u qaato in qofku been sheegayo, sida awgeedna soo saaran natiijada ah in waraysiga laga qaaday qofkan aanu ka bixin jawaabo run ah. Waxaa iyaduna jirtay sabab kale oo laga yaabo in CIA-da ay ku kalifaysay in aanay rumaysan natiijada mishiinkooda oo ay iskaga sii adkaystaan shaqaalanimada nada. Markan mishiinka fashilinta beentu uu soo saarayay natiijada ah in nada ay been sheegayso, CIA-du waxa ay ku jirtay xaalad ay baahi aan laga maarmi karin u qabto dad afka Carabiga ku hadli kara oo buuxiyo kaalmaha tirada badan ee ka bannaan shaqada uu sirdoonka Mareykanku ka waday dalka Ciraaq ee uu markaas ka socday dagaalkii Mareykanku ku qaaday. Waxaa iyaduna jirtay in dad badani aaminsanaayeen in isdabagalka wakaaladda sirdoonka gudaheeda ah ee ay wakaaladda sirdoonku doonayso inay ku ogaato haddii ay jiraan basaasiin laba wajiila ah oo cid cadow ah u adeega ay isdiidooyin ka dhex abuuri karto wakaaladda gudaheeda, isla markaana ay dhici karto in haddii mas'uuliyiinta sirdoonku ay waxoogaa ku talax tagaan shakiga ah in basaasiin cid kale u shaqaysa ay ku dhex jirto, ay taasi keeni karto kala shaki dhaawaca kalsoonidii ay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee wakaaladdu ku wada shaqaynayeen. Waxaa iyaduna ka mid ah sababaha nada u sahlay inaan laga qaadin tallaabo ka jawaabaysa natiijada ka soo baxday baadhista mishiinkan, dood marka hore taagnayd oo sirdoonka Mareykanka ku naqdiyeysay inay shuruud iyo habraac aad u dhib badan mariyaan dadka ay doonayaan inay shaqaalaysiiyaan, taasina ay sababto in dad badan oo u shaqayn lahaa ay iskaga joogaan. Waxa ay doodani sirdoonka ku dhaliilaysay in basaasiin badan oo afaf aan Ingiriisi ahayn garanaya oo caawin lahaa ay shaqadooda ka joogsadeen sababo la xidhiidha shuruudahaas adag awgeed. Doodan oo taagnayd markii nada baadhista lagu sameeyey ayaa sabab u noqotay in laga dabciyo baadhista iyo shuruudaha kale ee la marin lahaa, isla markaana aan lagu go'aan qaadan natiijada uu mishiinka fashilinta beentu soo saaray. Mas-uul ka mid ah ragga sirdoonka ka tirsanaan jiray ee uu rameeyay wargeyska Newsweek oo sheegayay aragtidooda la xidhiidha dabaca CIA-du u muujisay nada ayaa yidhi, arrinta nada nadiim marka aan ka hadlayo waxa aanu imika bilownay inaanu go'aansanay inaanu ka dabcinay shuruudaha iyo habraaca aanu marinay oo intii la rabay ka hooseeyey. Qisada nada nadiim ma ay ahayn markii ugu horreysay ee CIA iyo Xisbullah midaba uu kan kala basaasay, laakiin markan waxa ay kaga duwan tahay kuwa kale in qisadu aanay sidii caadada ahaan jirtay ka dhicin gudaha dalka Lubnaan, balse ay ka dhacday Mareykan gudihiisa oo weliba ah xarunta dhexe ee CIA-da, wakaaladda sirdoonka ee dunida ugu weyn. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda ee uu Xisbullah ku guulaystay inuu basaas u shaqeeyo ku dhex beerta CIA-da. nada oo dhalatay sanadkii 1970 waxa ay darajo sare ka gaadhay waaxda baadhista iyo ka hortagga argagixisada ee CIA-da. waxaanay ka shaqaysay kiisas aad u heer sarreeya oo ay ka mid ahaayeen baadhistii CIA-da ee la xidhiidha markabkii USS Cole ee lagu qarxiyay dekedda magaalada Cadan ee dalka Yemen. sidaas oo kale waxay ka mid ahayd saraakiishii CIA u dirtay magaalada Baqdaad xilligii uu socday dagaalkii Ciraaq. qisadan uu soo turjumay Kamaal Axmed Cali, anigoo Cabdiraxmaan Dhuxule wahayna aan idiin soo gudbinayay. intaas ayay ku dhamaatay. sidaa iyo nabadgelyo.